bismillaahir rahmaanir rahiim daawadayaal ku soo dhawaada warka dalwanaag TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeena habeenna waxaa kamid ah ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo si kulul uga hadlay xaalufinta Soomaaliland ay kaga soo xaalufinaysa deegaanadeeda dadka ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo si heersara loogu soo dhaweeyay degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose xaaladii ugu dambeeyay ee deegaanada Galmudug oo aad u soo hagaagaya shacab fara badan oo ka cabanaya gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaha guutada afraad ee ciidanka xooga dalka oo ka hadlay boob lagu hayo dhulkooda qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo koraya barnaamijyadeena ku daawan doontaa saaxiibayaal falan dayta markii kugu horeysay shar garee la garee commentiga nagula wadaag oraahdaada mahadsanid ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo uu wehelinayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa waxa kulan ay la qaateen saraakiisha laamaha amniga qaybahooda kala duwan iyo taliska ciidanka amisom qaybta degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose kulanka ayaa looga hadlayay xaqiijinta amniga doorashooyinka aqalka hoose ee dhawaan la filayo inay ka dhacaan degmada Baraawe oo xarunta rasmiga ah ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha koonfur galbeed ayaa waxa ay fareen saraakiisha hay'adaha amniga degmada Baraawe in ay dardar geliyaan howlaha sugidda amniga iyo la dagaalanka al-shabaab kulanka ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya Cali Siciid Fiqi iyo wasiirka gaashaandhigga maamulka gobolka kan degmada Baraawe iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa si weyn u dhaliilay raafka Somaliland ay ku bilowday dadka ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya kuwaas oo boqolaal ka mid ah shalay markaa laga soo masaafuriyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Somaliland ayaa dadkaasi ku soo daadgureysay gawaari xamuul ah waxaana sawirro lagu baahiyay baraha bulshada ee internetka ah ay muujinayeen ganacsatadii Laascaanood ee ka soo jeeday koonfur galbeed oo laga soo saaray magaaladaasi iyadoona hantidoodii ay taallo halkaas Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa tallaabada ay qaaday Somaliland ku tilmaamay in ay ka dhigan tahay meel aad u hooseysa oo aan anshax ahaan iyo siyaasad ahaanba ay gaartay Somaliland raafka qasabka ah ee lagu soo bandhigay Laascaanood waxay astaan u noqon doontaa meesha aadka u hooseysa ee ay Somaliland gaartay anshax ahaan iyo siyaasad ahaan in si qaldan bulsho loogu eedeeyo duruufaha ku hareeraysan magaalada ma dhalin doonto xasiloonida la raadinayo waxna kama qaban doonto isbedelada siyaasadeed ee hoose ayuu yiri qoraalka uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya taliyaha booliiska gobolka Sool ee Somaliland ayaa shaaca ka qaaday in si gaar ah ay u beegsan doonaan dadka aan u dhalan deegaanadaasi ee markaa ku sugan gobolka waxa uu na tilmaamay in dadka ka soo jeeda koonfur galbeed iyo bartamaha Soomaaliya ay ula mid yihiin Itoobiyaanka iyo sidoo kale ajaanibta kale sida wadalka uu dhigay taliyaha si kastaba falkan ay Somaliland ku kacday ayaana waxa uu noqonayaa kii ugu guracnaa ee maamulada dalka ka jira ay ku kacaan iyadoona uu gaar u yahay maamulka Somaliland oo kaliya isla markaana lagu dhibaateeyo dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya wali waxaad daawanaysaan saaxiibayaal barnaamij wareedka dalwanaag TV haddii ay tahay markii kugu horeysay fadlan like garee share garee asxaabtaadana la wadaaga subscribe-kana ha naga iloobin si ay kugu soo gaaraan macluumaadka halka ay kugu soo gudbino shacab fara badan oo cabasho ka qaba taliyaha guutada afraad ee ciidanka xooga dalka ayaa maanta iskugu yimiday kulan ay uga cabanayeen Sani Cabdulle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Cumar Finish shacabkan ayaa ka cabanayay inay boob ku hayaan gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaha guutada afraad dhul ku yaala waqooyiga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho shacabka ka cabanayay taliya Sani iyo gudoomiye Cumar Finish ayaa ah dadka degan xaafadda waqooyi ee magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Waxar Cadde inta u dhaxaysa deegaanka Gubadle iyo xaafadda Waxar Cadde waalidiinta cabanayay ayaa waxa ay sheegeen in la soo sameystay waraaqado been abuur ah oo la rabo in lagu dhaco dhulkooda sida ay hadalka u dhigeen dadkan oo iskugu jira dad ah agoon iyo masaakiin ayaa ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo waxa ay ka codsadeen in ay xaqooda ugu soo dhiciyaan dadka awoodda u sheeganaya sida ay hadalka u dhigeen dadka cabanayay ayaa waxa ay sheegeen in tan iyo markii uu yimiday gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Cumar Finish
xarunta gobolka looga arrimiyo ee Fisher Kuwerna uusan qaban wax shaqo ah wax uu haleeyo mooye, waxayna hawada u mariyeen hanjabaad ahayna iska celin doonaan haddii uusan wax ka qabanin waxa ka dhacaya waqooyiga magaalada Muqdisho, taasoo ah in dhulkooda la boobayo. Ugu dambeyntiina hooyo ka mid ah dadkii cabashada ka qabay sargaalkan sare ee Saniya Cabdulle iyo gudoomiye Cumar Finish ayaa waxa ay sheegtay in Allah u naxariistay injineer Yariso uu dhulkooda u soo dhicin rabay, isla markaana xaalad gabagaba ah ay maraysay xilligii uu geeriyoonayay. Tan iyo wixii ka dambeeyay markaasina ay soo baxeen dad qowleysato ah oo doonaya inay dhulkooda ka xoogaan. Waxaa maanta degmada Garbaharey ee gobolka Gedo ka degtay diyaarad siday saraakiil iyo ciidamo ka tirsan booliiska AMISOM oo ka ambabaxay magaalada Muqdisho. Saraakiisha iyo ciidamada oo tiro ahaan gaaraya ilaa iyo 20 meeyo ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee degmada Garbaharey ku soo dhaweeyay maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada kala duwan ee dowladda Soomaaliya. Saraakiisha iyo ciidamada ka socda booliiska AMISOM ee gaaray degmada Garbaharey ayaa waxaa qayb ay ka noqon doonaan ciidamada sugaya amniga doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee dhawaan lagu qabanayo halkaasi. Heshiiskii doorashooyinka oo ay wada gaareen golaha wadatashiga qaran ayuu qayb ka ahaa in magaalada Garbaharey la geeyo ciidamo ka socda AMISOM sida ay booliiska Soomaaliya uga caawiyaan sugidda amniga doorashooyinka. guud ahaan saaxiibayaal barnaamij wareedkeeni Dal Wanaag TV aad ka daawanayseen caawa waa inaga intaan warkankiisa xiga ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. haddii ay tahay markii kugu horeysay ee channelkeena soo booqatana subscribe sar, like garee, share gareena asxaabtaada la wadaaga si ay u gaaro macluumaadka halka idinkugu soo gudbino.